بسم الله الرحمن الرحيم حرام فايل قلتو أنا شرفت لها كرهد ورك هرب أنا دورتيل كارلادي لندور كسن وركان رابطك قولو دونتان ولين كوينا دولة كوفر قلبيد أوس رسمي ين هول جريدي إذا ماذا قولنك السوقين أمنيك بلد كبراوي عاصمة كوفر قلبيد سوماليا عبد الله الداهر يا وركن بلد كبراوي أقول دري وزير أمنيك دولة كوفر قلبيد حسن عبد القادر محمد أوكل مش دون كذا عاصمة دولة كوفر قلبيد براو كلن كان يمي بس لقاعدة إذا ماذا لنك تلقى السوق أمنيك دقمة براو كل كيامي بدير جلك ساراي سديسي ودجرا لانك شقاي لها أمانك مقالد أو شرق الدنيا وزير كأمنية مدن حسن عبد القادر محمد يا إذا مدى أمرك سي إني وكهول قلان ساعدون ولي لكبلها وأمانك مقالد برابا ساسوكا كل كيامي بجيب كحاية تليها أورك لواتي شنات علي دقال أو سون ساسوكا أمرك وزير كاتكي لأنك كرون دياسا ميلا بالمثل إنجز دتك كنا كتام فلاسا دتك حبض ملك رداء نقول مال أراو والسرنجية jidkan hirinyi waa hoolasala ku haay nagoylilay raalaaw magaalada markan dadka shacabka ay wali fadaan haysiinka diirsadaan araan war ciidankii maasha Allah waaye amniga gudaha ka shaqeeyahay safaylaan isla shaqeeyahay shaqo isla qabadahay waa ka galabtii isoo roondayaasan socotaan markii la araga hamiinkii waqti dambe isoo meelo fadhiidano dadkii baarasaano shal saarasan hoob la araga markan dambe wali diirtan la faday wadankan magaaladan hubbadan oo sharciyeysanaa taal dad badan hata markay ciidanka iska dhigay ku faa'iideysaday lan kasta guriga gaaday baraawi kooy ki doonka kooy iyo ki lukka kooy iyo ki diyaaradka kooy hubkaas sharci darada sharciga ku saaran lanka askariin hayna shacab meelan roogu xaq an la inuu hubshay haysado wali kooy xafiis lanka tirgalay saldhigan lagu dhaafuraaw formal lanshana doona mooli jara diiwaangelinta hubka la raaw meel la maradon lankaas lan hubshay la koogiya nagada doon oo shacab iska ilaaliyo isin ka ogtin barakumaalan markan hubkaas meel la ka gobado soo wala ka laayo kii la diiwaangeliya lan haysad kan la ka gobado iyo kan la diiwaangeliyo isku mid waay hatta wali dhiyaasay xanta oo aan leen sheegay askari oo shaqo ka jaro inta roogu yalan shacab aan kooye wali la guriga ka adeegday isib markuu magaalada la galay wala hadhace arintaas la sheegay lanka saas araawna waliba waa lan taw baran oo xoog dalka haay xaqoosidii dhibac saaran magaaladan roogo waay idisiiyay inaad fulidaan la karo annaguna waxaan ballan qaadaynaa waxaad noo keentaan inaan wasiirka gaarsiino isaguna uu sii fuli go'aan kaas qabtaan amaraad qabtaan ummadda waxaa la in ka rabaa inaad wax ka bedeshaan sida ay tahay horta marka hore ilaahay laga cabsado qofku markuu ilaahay ka cabsado wax saxa umad waxa rabana in ku dayato laakiin idinkii qofka la saxil adag ku dhex jiro umad ma saxi kartaan harna umada in la saxo in caawa laga bilaabo waxaana umada Soomaaliyeed loo shaqeynaa isa xataa rabna ilaahay dartina u shaqeeyda saraakiishina waatan amaray qabtaa wax alla waxaad aragtaan keen wala filiya Abdullahi Daahir warteelka laadi بلدك برا هلبان كترسن قلاش إبكا ديجان دورشيسنا التكوفر قلبيد يوز ريل هوجن جيدي والهاي حسن شيخ محمود هلبان مرجان أو كمدة هلبان هذا قلاش إبكا بارلمان كجمهورية فدرال كصوماليا وسلو ورسجون سير لادي ميديا يوز الشيخ إنه ولا حسن شيخ محمود وس هرسرني والبدن أو كونفر قلبيد لأن كتلق قال إيون حتى جيت سدم أو يوم ولد دون أنا ذا قار وس وذا والهاي حسن وشيخ محمود بلا ملحبا لبا بقول مرة بلمي intaas wax xishmeena dalka tureen intaas dalka u tureen anka laakiin hadda dalka u turnu leeyahay mana ka yeelayno wajh dalka meesha u maray ina beela hub ay mataqan ay qabsadaan oo qaniimeystaan maroosa meesha loo wada aqoonin dawladda ma leh ma shabaab askale bilaykal ma askale ittiqa ma lahan madan xashiq madaxweynow dalkan adaa madaxweyne ka ah anaga xilwaanada deegaanka oo mataqan ka soo jeedanahay madaxweyne dalka awood qaybsa hada sax weeyse waxaan la ordays wax ka shaqeynaa ma jiro doonto runtaan ku sheegayna madaxweyne xasan sheekh ma ba ka cambaaraytay intiisa gacan bidixeen ka haya dadka reer koonfur galbeed digili mirifla oo degaayaan todob gobol oo ku mid ah koonfur galbeed ma aad gacan bidixeentas yes digil mar waa dareem kartiin warbaahinaatiin xashiq xilwaanada digili mar ma ilaahay koona la kulmaa waxa kama soo naas cadaado awood u diidan qoomiyad jirta ma galo hada dastuurki oo afar qodob ahaa waa la xisoomaha waa dastuurki oo maqaam gobolka banaadir wuxuu keen leeyahay haduu keeno degli mira maashi gudoomiye ka naqanayaan
قدومي دقل مفعل ورجع حشق مقامكم مقدس مرة هذا أرد حالي حيرك دور شغل أنسحي حير دور شغل ماش أتكش غير نسمعان ماله سعة المجرة قولوا هاكستان إذا نيجي نسمعها بارونك لما كين كرو إذا كين نسمعها إذا كش غير نسمعها فرح للثلجلاء حكومة ويبان صحيح ذي قدي دور الشدة حير فدرال ما كل أنت قصواي وأرض وين أرض واي وحق وضان بوقنا اسكي جدنا لكن مجسميسو حلوانة دقل مرف لما نيل دونان هير دورش لقاش غي دونين واحدة ما لقاش غي دونين عد أن كيلنا ملحن ماشي ذل كان أود قيس دل الصحن والله هنا حول قوانين وايا أنشر بحياش قولك بنادر هوي دقل مراء بدن نبات له هاي وارتي ويصير أنت اسكسوا بحول لي هاي هير بنادر وجوا هجرتينه أنشر تعال بحي سومان هلا سوق هذا بوتين هلا سوق هذا ما مقولات كان هلا سوق هذا قولك بنادر وحن شغل بحي دون مجلس ما نيل دون وزيركم وعينا برلمان كانوا وعينا وانا وعناي وانا كيد دونا انت عشور قاد دونا ما جرتون شعب الصوماليات عن شورت قبل كبنادر انت اللي قاد جرمون ان كلا داب حسان اذنك يا دباتي اسكو كيني هلا بنان بخو دولت هل اسك عشو دولت انت كبدن لما دول قاد كرو وانا لا اسك عشو دولته shirka qorsho reeding heliisyowka ama dhaba heliisyowka qaran ee 2025 oo la ka gabagabay beledka Nairobi sidoo warkan beledka Nairobi ku ku diri wardaan Maxamed Nuur France safiirka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aan fadhiyo wadanka Kenya Danjire Jibril Cabdille iyo waliba uu ka rasmi ah hiray shirlanku dawaahay qorshaha dib u heshiisiinta qaranka oo mudashan maalmood ka daray magaalada Nairobi ee wadanka Kenya shirkan waliba ka qayb galana khubaro sare oo ka daran wadamada adduunka saraakiil ka daran wasaaradda arrimaha gudaha iyo reeding heliisyowka Soomaaliya iyo siyaasadda qiibaha bulshada shirkantiisu daran waliba lan ka hadlay qorshaha dib u heshiisiinta oo silindaad jiilahay shanta maalmood darariyaan waliyaabo badan la ka faa'iidi saasaatow uu nimadan yasir rasmi ah laan kiiri magaalada Nairobi walana markaasayti hiritaanka ka qayb galay safiir Jibril iyo xubno kale oo markaasayti shir gadisan hadaba qaar ku tirsan mas'uuliyiinta ka daran wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ee kulanka qaybta ka hayaan iyo hadallo muhiim ah ka jeedin waxaa magaalada Nairobi lagu soo gabagabeeyay shirka diyaarinta qorshaha 5 sano ee hanaanka dib u heshiisiinta qaran 2025-2029 ee socday 17kii bisha July ilaa 24ka bisha July 2024 shirkaas oo ay garwadeen ka ahayd wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waxaa ka soo qayb galay khubaro ka kala socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo khubaro ka socotay hay'adaha ka shaqeeya nabad dhiska Soomaaliya lagana qayb geliyo muxuu ahaa istiraatiijiyada la rabo in dib u heshiisiin dhaba Soomaaliya ka dhacdo iyadoo loo kala qaaday kuwa qaran kuwa heer state kuwa muxuu ahaa state-yada gudahooda ka dhaxeeya conflicts-ka ka dhex jira territorialka kuwa dhulka kuwa community-ga dhammaantood in laga dhigay loo kala qaaday sida ugu habboon ka dambeyntii safiirka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aan fadhiyo wadanka Kenya Danjire Jibril Cabdille iyo waliba munaasabadii xiritaanka sheegay in shirkan muhiimad weyn markaasiitan ka fadhi ee dawladda Soomaaliya ee markaasi inaan ka mahadnagaan dadkii qaban qaabiyeen shanta sano soo socota in la helo qaab lagu shaqeeyo dib u heshiisiinta asal u tahay saddexda heer dib u heshiisiin hadda laga dhawaajinayo ah mid localka ah dadka hoose ah mid waxa la yiraahdaa subnationalka ah oo gobolada internationalka ah dhammaantood in xal loo helo waxaan kaloon aad ugu faraxsanahay qodobada ka soo baxay in istiraatiijiyadu aysan kaligeed istaagi karin laakiin kaabayaal ay yeelato amba ha noqoto cadaaladda ha noqoto amba institutionkii hadii dawliga ah qayb ka noqdaan marka waxaas oo dhan waxay muujinayaan muhiimadda ay leedahay ummadda Soomaaliyeed way nagu raagtay muddan ku soo jirno dagaal sokeeye iyo isqabqabsi Maxamed Nuur France Arladi Media Nairobi Hirshabeelle iyo shaacidin degmada Aadan Yabaal iyo ku kabatay dhibaatooyinka kooxda shabaab iyo injeysideen muddo sanad iyo bilooyin kureed galanta dawladda ka jirtay ulhayka dawlad goboleedka Hirshabeelle Ali Abdullaahi Xuseen Guudla oo saadeeri degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ya sanad kureed meelaha ku hadab jaray mashaariic shalgadiisan oo degmada la hirgeliyay tan ee markii al-shabaab la kula wareegay sanad ku hor degmadan oo yahay degmooyinka dawladda federaalka Soomaaliya oo soo gaamiya wasan sheeg Maxamuud Guuleys tintir ku saar kooxda al-shabaab
tumishan sano kureed iyo hata wali iyo la jaan qaada ay degmooyinka kale ee hergalaha ayaan hooska dowladda walaayka Hirshabeelle ala Guudlaawe wasiilo dowhay dadka degmada aadan yabaal iyo uu sheegay in degmada inta ku bilaawata iyo lamada degmooyinka kale Hirshabeelle waan iyo ka hergaliyaan tan iyo markii al-shabaab lagu saaray in ka dhow 20 mashruuc degmada aadan yabaal waxaa ka fulay 13 mashruuc oo qaar xiriga laga jaray qaarna la dhagax dhigay ayaa maanta waxna fuleen waxna la dhagax dhigay hadii la raali ka noqdo degmooyin kalena haddaan ku sii jeednaa idana sidoo kaleentood qaarna xiriga looga jaraayo qaarna la dhagax dhigaayo runtii reer aadan yabaal waa uga mahad celinaynaa mashaariicda fushay gacanta iyo garabka aad siiseen maamulka degmada iyo midka gobolka iyo guud ahaan dawladnimada garabka aad u naqateen reer aadan yabaal waa idinkaga mahad celinaynaa mashaariicda fushay waxaa ka mid ah garoonkan hadda ku sugannahay iyo maamulkii xafiismanka maamulka degmada ay ku shaqay lahaayeen isgoolaad dhammaan insha Allah hadii la raali ka noqdo xirigan ka jarayna hal aan u dul tigi doonaa isbitaalkii weynaay waa dhagax dhigaynaa oo gobolka ugu weyn ama guud ahaan Hirshabeelle ugu weyn oo naqa doona isbitaalka inta laga dhagax dhigaa hadii la yiraahdo mashaariicda waxaa kamid ah saldhigii booliska nalalkii cadceedda waxa fulay way badan yihiin wax badanna jidkay ku soo jiraan baahidaad sheegteen oo amba shirib ku sheegteen ama aad afka ku si toos ugu sheegteen intaba waa ognahay waxna waa fuleen waxna wadaday ku soo jiraan hadii la raali ka noqdo ceelka biyaha waa ognahay ceel fiican oo ku yiilay nimanka cadawga ayaa ku riday bam anagana maalinka habeenkan soo galayna horaan u soo qaadnay bamki iyo qalabka ay ka gubeen horaan u soo qaadnay laakiin waxaa noola sheegay inay il xaraara ku furatay biyihina ay dhanaan naqdeen insha Allah ceel cusub la mudi doona hadii la raali ka noqdo guud ahaan mashaariic badan oo wadada ku soo jirto baahiyaha aad sheegteen midba maalin ay fuleen insha Allah hadii la raali ka noqdo waxaad ogaatiin mashaariic badan oo bulshada wax ku ool u ah ayaa ka fulay degmada aadan yabaal kuwan hadda jidka ku soo jiraan hadii la raali ka noqdo aad u mahadsantiin waa ka mahad celinaynaa soo dhaweyntiina balantaynu waa dawladnimo balantaynu waa deegaanka nabada iyo dad isjecel iyo guud ahaan degmadan degmooyinka diriska la in nabad nagula noolaado haddaan nabad la helin horumar ma jiraayo waxaa la idinka rabaa in cadawga gudaha midka bannaanka iyo nin kaste aad u aragtiin cid kaste aad u aragtiin nabadgelyada iyo nolosha wanaagsan ee degmada ka bilaabatay inay wax u dhimayso gacanta laga qabto istimo wartal karlaadi muqdisho bahdo wardhaanada Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya ku eedayeen in iyo afqabada hayta wardhaanada madabanaaw ama Ibrahim ya qormaas shir jaraa'id oo inuu kooyeen warbaahinta madabanaa ee howlgalo guda baladka Muqdisho iyo la qawaday beertooyin ee beertanabada shirkan jaraa'id yaa way balahanka ku horjeeday xaraga la hiri wariyaga Ali Nuur Salaad oo xalay dawladda Soomaaliya ka eedaysay in anshax xumaha gudbiya qaar kumid ah agaasimiyaalka warteelada madabanaan iyo ku doobahay hagwaana ku horjeesidii xaraga lanjeysidii wariye Nuur Salaad oo ku tilmaaman ko qalade in wariyaga bilaa eedeyn la hira hadaba waano qaar kumid ah oo warteelada doobahay waxaan ka xunnahay oo maanta u soo istaagnay xaraga loo geystay walaalkeen wariye Ali Nuur Salaad oo isleenahay sida loo maray ama wadada loo maray inaan sax ahayn Ali Nuur Salaad waa wariye la yaqaan magaaladan ka shaqeeyay xukuumadda ka shaqeeyay in jidka gaari Cabdibilaal looga qaato sida nin baxsanaya waxaan isleeyahay waxay ku tahay ihaano waxayna ihaano ku tahay saxaafadda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaa halkan taagan golaha warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliyeed oo isugu jira xarumo kala duwan oo telefishinno iyo raadiyaal iyo wargeysyo iyo wakaaladihii wararka caalamiga wakiiladoodii Muqdisho fadhiyay oo halkan u taagan inay muujiyaan shucuurtooda ku aadan xarigii loo geystay walaalkood saaxiibkood wariye Ali Nuur Salaad Xasan oo sida saaxiibadii iga horreeyay ay sheegeen aan aad u dhaliilayno una cambaaraynayno
runtii waa xarig aan loo meel dayin oo aan ku habbooneen anshaxa saxafiga runtii habdhaqanka loola dhaqmay ama loo isticmaalay in qof mas'uul loo isticmaalo waa waxaan leenahay dawladda Soomaaliya sida isin la dhaqanteen si sax ah meediyaha maylaris madaxweyne Xasan Sheekh iyo team shalay markii banaanka roogeen may ka dhaqamaayeen saxaafadda haayeen meelo iyo warka marsiyaayaan meelo iyo lankiiliyay saxaafadda hayti geega markii iyo gudaha galeen saxaafadda intii iyo ka jeysada mahayna may ba markale cambaarayaan xaraga linjeysadi wariye Cali Nuur Salaad Amisha Ibrahim warteel Karlaadi Muqdisho hiraban fayl guurtooyna sharafta meelasna guuridaas may ba warteel Karlaadi Lundoor kaalan polinka wiina dadka ka mudan daadadka ka dhawan Ethiopia oo ka dhow 700 qof tirada dadka dhamadan daadadka ka dhawan degmada Goba ee koonfurta dalka Ethiopia iyo koran dhaaftay 229 qof sidoo uu sheegay sarkaalka tirsan maamulka gobolka talaadadii amuushada ayaa la kiyaaba in iyo korta iyaduna goobta masiibada iyo ka dhiidi iyo hata ku dareerahayn dadaal eedan hoogle oo ku saabsan sidii lan samati bila inkastoo iyo email eedan dheer waan iyo adagda in la jeeyay qalabka culus ee gurmudka jididka go'aan lanka talagalay in dadka lanka gurmada dadaalada samati biyowka dadka wali dareeraan inkastoo si eedan hooseeyaan dhulgo eedan biliran iyo daadadka koonfurta Ethiopia iyo ku sababan wareyn iyo naqdaayna heli roobaadkii in ka horeeyay bilo June iyo August ee ka dhawan dhibaatadan iyo jeysida guuritoodana sharafta leh warkiraabana aysan guuridaasaan warteel Karlaadi inta ka dhanyo buusan dhaafin may kula kartaan website-kan arlaadmedia.com bara bulshaduna kalena salaamadan meel deeq karta app Karlaadi kula degaas oo ka Play Store ka App Store aweysto moosan hiraban fayl